maalmihii u dambeeyay waxaa magaalada Laascaanood ka soconayay dhibaatooyin lagula kacay dadka ganacsatada ah ee ka soo jeeda Koonfur Galbeed. Maamulka Somaliland ayaa Laascaanood ka tarxiilay dadka ganacsatada ah ee ka soo jeeda Koonfur Galbeed. xildhibaan Cabdixakiin Cabdi Qormudoobe ayaa diiday inuu qaato gudnimada ka socota Laascaanood. bismillaahir rahmaanir rahiim. anoo magacaygu yahay Cabdixakiin Cabdi Qormudoobe waxaan doonayaa inaan maanta ka hadlo dadka degan Laascaanood ee laga raafay u dhashay gobolada koonfureed aad iyo aad arrintaas uga xunnahay haddaanu nahay reer soo sanaag yahayn gaar ahaan reer Buuhoodle. waa arrin aad iyo aad murugadeena naxdinteeda u leh. social media waad ku arkaysan wixii dhibaato ee tacadiya ee ku dhacay reer Koonfur Galbeed shacabkooda degan magaalada Laascaanood. waxaa ka mid ahaa caruur yaryar oo haddada aabahoodii iyo hooyadood toona aan haynin oo lagu hayo magaalada meelo ka mid ah qaybo ka mid ah. waxaa jirta dad waayeela dumar uur leh dad jidka ku umulay dhibaatooyin badan baa jira. Buuhoodle saacadan hadda aan joogno waxaa soo gaaray dad gaaraya 270 qof oo waayeel iyo ciyaal wax walba u badan yaa soo gaaray. reer Buuhoodle haddaan reer soo sanaag cayna una ku hadla afkooda cid kasta oo ka soo cararta SNM xasuuqay ku hayso iyo raafitaanka ay ku hayso waxaan u diyaarinay dhul ay ku deganaadaan ama ay ku noolaadaan oo Soomaaliyeed. waana arrin khaldan qof Soomaaliya in la yiraahdo ajaanib baata oo ajaanibnimo loo soo saaro dalka Soomaaliyeed. marka waxa weeye ajaanib ninka ku sheegaya soo Soomaaliyeed waxaan u maleynayaa qofka diidan Soomaalnimo diidan waa qof diidan dhimashada diidan. taasaan oranaya waxaan halkan baaq uga diraya dowladda federaalka Soomaaliya oo dadkan la moodo inay hadda aragtay dadkan la raafay waxaa ka maqan oo dadkii u dhashay ee soo sanaag cayn dad baa hadda dibadda wareegaya oo ka maqan oo hore loo wacay dadka loo raafay oo iman karin Soomaaliya aan iman karin Laascaanood iman karin gudaha soo gali karin. waxay ka mid tahay raafkii jira raafjaadka jira ee hore u dhacay ayay ka mid tahay. waana arrin aad iyo aad loo murugoodo. waxaa kaloo jirta nimankan u dhashay koonfur umay maanta qura Laascaanood lagama soo saaray. hore waxaa looga soo saaray Hargeysa, shalay waxaa laga soo saaray Berbera, inta waxaa laga soo saaray Burco. Laascaanood waa maalintii meeshii ugu dambeysay laga soo saaray. waxaa weeye reer soo sanaag cayngana hal baan leeyahay. waxaa weeye inaad kacdaan oo maanta waxaa loo baahan yahay dhalinyaradii SWL intii xoreysay waa la garanaya Soomaaliya wixii xoreeyo SWL in yar bay ka bilaabatay. waa reer Buuhood reer soo sanaag yahayno aynu kacno dhalinyarteenu ha kacdo aynu qaadano qoryaheena qaadano shiikheena codkarkeena caamadeena cid kasta oo ku jiro oo dhig Soomaaliyeed ku jiro oo wadanimo ku jirto inaynu aan kacno. waayo waynu garanaynaa historyga iyo taariikhdeena waan garanaynaa. horta maanta nin gudnimo kula tartaymaan historyga iyo taariikhdeena waan garanaynaa. waxaynu nahay dadkii oranayay nimankan SNM haysta ee Laascaanood haysta buuraha ka soo degin kama soo deegi kartaa sagaaro ma diri kartaa hadaa dirta magteeda laga qaadi. maanta waa nafsi bay guranayaan maan rajeynaya. waxaan u maleynayaa dadku waa hadii Soomaaliya dhulka ay meel looma dhaxlay laakiin hadii la kala sheegto SNM gaatama dabadeeda ilaa inta gaatama ka sugaysan naga iska waa hadii la xisaabtamayo dhul lagu xisaabtamayo. waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ka codsanayaa dowladda Soomaaliya ee federaalka Soomaaliya wasaaruhu hadlayo waa ka xumahay buu lahaa dibka dadka loo geystay. dadka horta dibka deystay hal ogaado marka ugu horeysa caqabada meesha ka timi hal ogaado dadka loo geystay hal ogaado cidda geystay hal ogaado. marka inta rag waan ka xunaa dadkan waa ka xunaa ma baahna ee waxay u baahan wax u qabtay u baahan dadka 12 sano qoorta laga taagna. waxaa la diray aqoonyahankoodii baa la diray waxaa la diray shiikhoodii baa la diray waxaa la diray waxgaradkoodii baa la diray. guddi baa loo saaray arrinta loo saaray. guddidii markay la ogaaday meesha wax u socdaan ay wax ogaadeen hordeg laga hordegayo in aan la ogaanin waxa dhibaato meesha ka in la ogaan iyo dadka loo raafay. imikana dadka reer soo sanaag yahayn arrinta arrin ay baajinayso dad la raafay baajinayso maaha. dagaal baanu ka xignaa hal la kacaan leenahay. waxaa jirta in waxaa ka horreeyay dadka in la raafo waxaa ka horreeyay inay yiraahdeen dadkii u dhashay reer Laascaanood oo aan koonfurba aan aqoonin wiilka reer Laascaanood hadda la raafayo waxaa laga yaabaa inuu weligiiba arag hooyadii baa bartan ku dhashay aabihii baa ku dhalay halkan ku dhashay saygiiba bartan ku guurtay ma yaqaano Koonfur Galbeed iyo koonfurtoona ma yaqaano. waxaa jirtay intaan la raafin hawshan iman
بريك كهر وحلقول وحد صوص ميسان وراقدي دالكوتشوج لدلبة تمادينوس السومالي لان يا تمادي وحيل لسوق بالقليل بينه مركا أرمحاس وحادي هذا بتوع أرنت على جكين وحادي دونتا من كستو ولا شيء أو رير ريسورس سنك عين أما رير لاس عنور ولا لاس عنو تشوجا هدي أد رأوي وح أميسين سومالي لان تأميسين رأوي كتك باكل لاس عنور وين اللي بحر أكله marka way arintaasi waa arin message bilowday soconaya waa inaynu ka kacnaa meel aynu joognaba reer SSU waynaad kana waxaad ogaataana cid ku maqan iyo cid ka sugayso inaysan jirin inagu aynu isku tashano dhalinyarteenu ha kacdo aynu sameeyno dalad isku xiran oo dal iyo dibada oo dalkeena ku qorayno. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.